cilmiga waa lagu koraa, cizina waa lagu helaa, adciid way hiilisaa, cilmiga waa lama huraan. talada ardayga toddobaadkan waxaan rabnaa inaan ka hadalno fahamka akhriska. akhriska waxa uu ka kooban yahay labo lakab aad u waaweyn. lakabyada waxay kala yihiin akhris ballaaran iyo akhris culus, way kala sii baxaan. akhriska waxaa jiro lakab kale uu leeyahay sawirka qaadasho oo loo yaqaano goosgoos. akhriska waxa weeye wixii aad akhrinaysa ama buug aad akhrinaysa waxaad ka qaadanay oo goos. waxaa loo isticmaalaa joornaalada iyo waraaqadaha iyo aaladaha facebooka iyo bbc-da dadka wararka ka akhriya oo raba inay sawir guud ka qaataan. waxaa jiro sawir ama lakabka labaad baabinta akhriska. baabinta akhriska waxaa lagu talagalay in lagu fahmo macluumaad sax ah ama qalad. bada waxaan aragnaa macluumaadka iyo wixii aad ardayga tahay macluumaada raadinay, marka baabinta wixii ardayga ka saacidaa inuu qoraalkaasiiti in laga fahmo macluumaad inay yihiin sax iyo qalad. qoraalka adag waxaa loo isticmaalaa xiisaha sheekada iyo run ahaanta qoraalkaas, waayo waxaa jiro aftahanimo oo wax lagu qoro, aftahanimo oo wax lagu akhriyo. marka qofka qoraalkaas soo qoray ama buuggaasiiti qoran ama waxa aad akhrinaysid ama imtixaan u galaysid, marka waxaa loo fiiriyaa xiisaha iyo sheekada quruxda badan ee qoraalkaasi leedahay. akhris ballaaran ujeedada akhriska noocan waa in lagu barto macluumaadka. waxaa loo isticmaalaa allaha mustacaan haddii aad wax baranayso ama cashar aad akhrinayso waxaad isticmaalaysaa akhriska ballaaran. akhriska ballaaran marka ardayga fahamkiisay dedejisaa, waayo waa akhris culus oo si culus wax loogu akhriyo. allaha mustacaan akhriska ballaaran ujeedada lagu barto waa in macluumaadkii lagu darsaa, haddii macnaha laga fahmi karo iyo macno guud. haddii laga fahmi karo macnaha guud. akhriska culus waa barashada weedha iyo erey aan la aqoon oo sax loo baranayo. xifdintoo kale akhriska culusaa loo isticmaalaa. marka waxaa jiro maadooyin badan aad qaadataa oo 11 ilaa 10 gaaraya. maadooyinka bada waxaa laga yaabaa inaad dhahdo maadadii fudud akhri, laakiin waqtiga kugu soo wajahan oo aad rabto inaad ka guulgaarto geedigaaga waxbarasho. marka waxaa jirta qaacido 80 to 20. 80ga macnaha shayga adag horumari si aad u hesho 80% himilada akhriskaaga. waayo waxa adag haddaad ka bilaawdo waxaad helay guusha 80%, waxayna fududeynaya akhriska 20% ee ku haray. marka arday markasta isku day inaad si akhriska culus aad isticmaasho, waayo buwaagta ama cilmiga aad dhigatay waxay u baahan yahay in la akhriyo, waayo buuggi asiga isma akhrinayo. haddii aad tegi jirtay iskuulka aad wax soo qori jirtay buwaagta meel aad ku tuudi jirtay, maanta waad ka guuraysaa waxaadna u guuraysaa inaad akhriso wixii aad soo dhigatay. taladu arday himilo doonayo taladu waa lama huraan. cilmiga waa lagu koraa, cizina waa lagu helaa, adciid way hiilisaa, cilmiga waa lama huraan. wabilaahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.